annagoo ah golaha wasiirada dowladda Puntland halkan maanta shirkan jiraayid waxaan ugu qabanaynaa inaan bulshada reer Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba la wadaagno sharaftii iyo magacii iyo guushii ka dhalatay shirweynihii wada tashiga Puntland ee 15 ilaa 17 bisha saddexaad ku qabsoomay caasimadda Puntland ee Garowe. run ahaantii waxa keenaya in dowladda Puntland ay aad uga hadashay shirkaas waxa weeye farxadda la xiriidha shirweynahaas iyo sidoo u dhacay iyo guush laga gaaray. waxaad la socotaan shirweynaha waxa ka soo qayb galay qiyaastii 1800 qof oo ku salaysan dadkii ay ku xusnaa warqadii ama war-saxaafadeedkii 7 bishii Febraayo ka soo baxay Boosaaso ee ahaa qaybaha kala duwan lagu casumayay shirkaas oo muddada 3 bari oo socday ay ka socotay doodo iyo falanqayn dheer oo ku salaysan qodobadiisa. waxaanu wada ognahay dadka 1800 gaaraya inay ka soo saareen shirkaas oo ka soo baxay warmurtiyeedkaas oo qodobo aad iyo aad muhiimad ugu leh reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedba uu ka soo baxay. waxaan la soconnaa markii warmurtiyeedkaas uu soo baxay in dadka reer Puntland ee joogay goobta oo 1800 kor u dhaafayay ay ku soo dhaweeyeen sacab iyo xamaasad iyo farxad ay ku soo dhaweeyeen. waxaan la soconnaa dadka reer Puntland meel ay joogeenba inay ku soo dhaweeyeen hambalyo iyo soo dhaweyn wixii ka soo baxay shirkaas. waxaan la soconnaa ummadda Soomaaliyeed oo aad u sugaysay natiijada shirweynaha wada tashiga Puntland oo runtii ahaa mid aad iyo aad muhiim u ah Soomaaliya oo dhan inay aad u soo dhaweeyaan ayaguna oo maantay ay u arkeen Puntland inay qaadatay doorkii laga filayay hadday ahaan lahayd arrimaheeda gudaha iyo hadday ahaan lahayd arrimaha Soomaaliya quseeyay intaba. waxaan haddaba rabaa inaan xuso dhowr qodob oo la xiriira guulahaas la gaaray ee shirka ka dhashay. markii dadka 1800 kor u dhaafaya iyo guud ahaan ummadda reer Puntland ay soo dhaweeyeen wixii ka soo baxay shirkaas waxaad la socotaan khudbaddii xiritaanka shirka madaxweynaha Puntland wuxuu ballan qaaday asagoo ku hadlaya afka xukuumadda in sida ay yihiin qodobadaas haddii lahaydma loo ballan qaadayo in loo fuliyo maadaama qodobadu ay u soo jeedinayeen dowladda Puntland inay fuliso qodobadii ka soo baxay shirka. waxaa raacay in shirkii khamiista golaha wasiirada ee halkan ka dhacay Garowe ay ka soo qayb galeen guddoomiyaasha gobolada Puntland iyo guddoomiyaasha degmooyinka Puntland. xukuumadda oo isku dhan oo goboladii iyo degmooyinkii iyo golihii wasiirada leh madaxdiina ay joogaan madaxweynihii iyo madaxweyne ku-xigeenkii waxaa gacanta loo taagay oo la isla qaatay in talooyinka iyo go'aanada ka soo baxay shirweynaha oo dadka reer Puntland ay u soo jeediyeen xukuumaddu inay fuliso ay xukuumaddu qaado mas'uuliyaddaas in si dhammaystiran looga howlgalo in loo fuliyo haddii lahaydna. taas waxay muujinaysaa kana turjumaysaa in xukuumaddu ay diyaar u tahay in taladii ka dhalatay shirweynahaas haddii lahaydna intii karaana sideeda loo fuliyo. waxaan rabaa inaan xuso in ayadana beesha caalamka oo aynu nahay dad aynu saaxiibbanahay dhinacyo badan aynu ka helay fariimo aad iyo aad u bogaadinaya una soo dhaweynaya natiijadii iyo qodobadii ka soo baxay shirkaas iyo weliba sida dadka reer Puntland ay u soo dhaweeyeen oo ay isugu raaceen ummadda Soomaaliyeedna ayaguna u soo dhaweeyeen. waxaan kaloo rabaa inaan dul istaago ujeeddadii shirkaasi ma ahayn shir ay ku wada hadlayeen dowladda federaalka wafdi ka socda iyo dowladda Puntland laakiin wuxuu ahaa shirweyne wada tashi oo dadka reer Puntland ay lahaayeen. dadkii ka soo qayb galayna ma jirin cid si gaar ah loogu casumay inay iyadu qorshayaal iyo ajendayaal ay leedahay ay keento laakiin waxay ahaayeen hadday tahay golayaasha Puntland hadday tahay siyaasiyiinta Puntland hadday tahay waxgaradka hadday tahay isimada hadday tahay mudanayaasha inuu ku matala golayaasha dowladda dhexe in dad
u yimid reer Puntland oo u yimid inay danahooda iyo danaha Soomaaliya kala dhaxeeya ay ka arrimiyaan si midaysan ayayna waxay uga soo saareen war murtiyeed ay isku raacsan yihiin oo aad la socotaan sida loo soo dhaweeyay sidaan markii horeba xusay waxaan kaloo rabaa inaan xuso qodobo ay muuqatay in ayadoo ujeedooyin laga leeyahay la rabay in midab kale loo sameeyo ama la fool xumeeyo qodobadaas waxaa ka mid ah war murtiyeedku wuxuu xusay markii laga hadlayay arrimaha federaaleynta dalka in dowladda federaalka loogu baaqay inay joojiso faragelinta ay ku hayso dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka oo tusaale loo soo qaatay dhacdooyin qaarro horey u dhaceen qaarraha haatan taagan yihiin waxaan rabnaa halkan inaan ka sheegno war saxaafadeedkan in dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka dhammaantood ay Puntland leeyihiin saaxiib dhow ay wada yihiin dowladaha xubnaha ka ah ee ka wada shaqaynaya sidii dalkani uu ku yeelan lahaa hanaan dawliya oo federaal ah oo inoo shaqeeya haddii lahayn kuwa sida gaarka loogu xusay war murtiyeedka oo ay ka mid ahayd galmudug oo ay ka mid ahayd Jubbaland oo ay ka mid ahayd koonfur galbeed waa maamulo ama dowlado xubno ka ah dowladda federaalka oo si dhow ay saaxiibo u yihiin qaarkoodna daris u yihiin dana badanna ka wada dhexeeyaan Puntland war murtiyeedku kama hadlin mana soo qaadin danaha gudaha ee dowladahaas xubnaha ka ah dowladda federaalka laakiin war murtiyeedku wuxuu ka hadlay dowladda dhexe sida khaldan ee marindarrada ah ee u adeegsanayso ciidanka qaranka oo loogu talagalay dadka inuu ka difaaco cadowga amnigiisana sugo halkii taa la samayn lahaana sida haatanba ka taagan deegaanada qaarkood oo ay ka mid tahay Jubbaland khaasatan gado sida lagu xusay war murtiyeedka ay dowladdii u isticmaalaysay ciidankii ayadoo cadowgii uu fadhiyo xamar wardooyinkiis oo wadooyinkii kala xiran yihiin oo la mari laayahay oo qaraxyadii iyo dagaal ka socdo oo aan afgooya la tegi karin oo aan balcad la tegi karin in ciidankii inta diyaarada lagu qaado la geeyo Jubbaland si khalkhal loogu geliyo amniga iyo dowladnimada ka jidha arrintaas weeye arrinta uu ka hadlay war murtiyeedku waxaana rabnaa dadka raba inay iska rogaan eedda oo ay u wareejiyaan meelo kale inaan laga aqbalayn lana ogyahay inaan xusno arrinta kale aan rabno inaan war murtiyeedkan war saxaafadeedkan aanu ku xusno waxa weeye safarka madaxweynaha oo runtii aan aad uga mahad celinayno dadka reer Puntland meelay joogaanba inay aad u ayideen in shir Soomaaliyeed ama gogol Soomaaliyeed ay Puntland dhigto sida ku xusnaa war murtiyeed ka soo baxay shirka caasimadda Garowe ee Puntland arrintaas aad baa loo bogaadiyey loona soo dhaweeyey waxaa jiray in madaxweynuhu ku dhawaaqay ayna ka soo baxday golaha wasiirada golaha xukuumadda in madaxweynuhu uu safar ku mari doono caasimadaha dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka iyo caasimadda Soomaaliya ee dowladda federaalka saldhigga oo ah si loogu sameeyo gogol xaar shirka shirweynuhu ku baaqay inuu ka dhaco dowladduna aqbashay halkan gogosha halkan la dhigay Puntland ay dhigtay ee Garowe ay dhigtay waxaan rabnaa inaan cadayno madaxweynuhu waxa weeye inuu u gogol xaaro gogosha fidsan ee ummadda reer Puntland ay fidisay ee dowladduna ay fulinteeda leedahay ay ka ballan qaaday ee halkan la dhigi doono inuu u gogol xaaro oo uu ku soo dhaweeyo madaxda dowladda federaalka iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah inay yimaadaan gogoshaas oo ay soo ajiibaan laakiin ma ahan in Puntland ay wada hadal kula soo galayso dowladda federaalka xamar sida meelaha qaarkeed loo dhigay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad u bogaadinaynaa aadna ugu faraxsannahay sida dadka reer Puntland ay shirkaas ugana qayb galeen go'aano dhaxalgalana uga soo saareen una soo dhaweeyeen intii aan shirka joogin haatanna meel walba ay ka socoto farxad iyo bogaadin shirkaas la bogaadinayo annagana sidii madaxweynuhu halkaanba uu kaga dhawaaqay khamiistii shirki golaha kadib waxaan ballan qaadaynaa haddii ilaahaydno in go'aanadii ka soo baxay shirkaas oo aan wax laga bedelin oo aan midab kale loo samayn inaannu sida ay tahay u hirgelino hadday ahaan lahayd wixii tabarteena haddii ilaahaydno hadday ahaan lahayd kuwa qoseeya gudaha Puntland iyo hadday ahaan lahayd kuwa Soomaaliya ina kala dhaxeeyaba waxaanu ku shaqaynaynaa shirka wixii loo qabtay waxay ahayd
ummadda reer Puntland inay isu timaado aayaheedana ka taliso shirkaasna ka soo saadho go'aano dhaxalgala ilaahay waa mahadda iska leh in go'aanadaasi inoo soo baxeen dowladduna sida madaxweynuhu u ballan qaaday waxaanu haddii ilaahay u howlgeli doonaa sida ay tahay inaan u fulino dadkuna ay nugula xisaabtamaan oo ay nugu dabagalaan haddii ilaahaydmo annagoo ku dhaadanayna dadka iyo iskaashigooda iyo garab istaagooda waxaanu ku shaqayn doonaa insha allah go'aanadaas aad iyo aad baan u mahadsantihin asalaamu calaykum